bal ka waran haddii aan kuu sheego inay jirto jasiirad maanta dunida ku taalo balse qof waliba ay mamnuuc ka tahay inuu ka ag dhawaado ama uu booqdo. Haa, waa run, waa jasiiradda qarsoon ee Sentinel Island oo ku taalo badweynta Indiya. Halkaasi waxaa ku nool dad aan weligood xiriir la yeelan caalamka intiisa kale. Marka hore, inta aan u guda gelin jasiiraddan dadka ku nool ee yaabka leh, waxaan kaa codsanaa inaad kanaalka ku soo biirto, like-tana aad inoo saartid. Soo dhawow mar kale. Markii aad ku fikirto nolosha casriga ah ee aan maanta ku jirno ama aynu ku noolnahay, waxaan haysanaa oo aanu isticmaalnaa sida telefoon, internet, diyaarado, balse dadka Sentinelska waxaasi oo dhani oo aan anagu haysanno waxba kama oga oo waxay weli ku nool yihiin sida 60,000 oo sano ka hor. Waxaa la sheegay in haddii aad ka ag dhawaatid xeebtooda 10 daqiiqo gudahood falaad lagugu soo hoobinayo ama lagugu soo ridi doono. Bal qiyaas adigoo hadda saaran dooni yari wata, kadibna ay falaadi ku dul dhacdo, ma istaagi lahayd mise waad carar lahayd? Haddaba jawaabtu way iska caddahay inaad si uun naftaada u badbaadin lahayd. Sidoo kale waxaa la sheegaa qabiilkaasi inay cunaan kalluunka ay gacanta ku qabtaan iyo ugaadha yar ee ay ugaadhsadaan, iyo beeraha ay ayagu uun yaqaanaan, iyo qudaarta keenta ka baxda sida miraha laga helo geedaha keenta. Sidoo kale hubkoodu waa mid ka samaysan qaanso iyo falaad, guryahooduna waa kuwa ka samaysan qoryo iyo caleemo keliya. Waa nolol gebi ahaanba ka duwan taada iyo tayda oo aanu maanta ku noolnahay. Waa nolol aad moodo filim taariikhi ah oo si toos ah u socda noloshoodu marka aad eegtid. Dowladda Indiya waxa ay keentay sharci ah badqabka dadkaasi, waxayna go'aansatay in qof kasta oo u dhawaado jasiiradda in la ciqaabo sababtoo ah dadkaasi waxaa la ilaalinayaa caafimaadkooda. Bal ka waran haddii qof caadi ah halkaasi geeyo xanuun yari sida hergeb oo kale, taasi waxa ay halis gelin kartaa qabiil dhan oo waxaa laga yaabaa inuusan midba ka hadhin sababtoo ah difaac caafimaad ma laha dadkaasi. Sidaa daraaddeed jasiiraddaasi waa mid xidhan oo aan cidi tegi karin, qofkii tagana uu ciqaab mudanayo. Waxaa dhacay sanadkii 2018 nin Masiixi ah ayaa isku dayay inuu si qarsoodi ah u galo jasiiradda. Ujeedkiisu wuxuu ahaa inuu dadka diinta Masiixiga baro, laakiin nasiib darro ma aysan aqbalin oo waxa ay ugu bedeleen in asagiiba ay nafta dhaafiyaan. Diin uu gaarsiiyey iska daayay. Qofkii uu doonta ka raacay si uu u geeyo ayaa wuxuu sheegay in falaadha ay ugu da'ayeen sida roobka. Arrintaasi waxay caddaysay 1 daqiiqo xitaa dadka Sentinelska in aysan rabin xiriir. Waxa ay leeyihiin mucjisooyin qarsoon. Marka aad maqasho sheekadooduna waxaa kugu soo dhacayso inaad isweydiiso su'aalo ku saabsan sidee ayay 60,000 oo sano ugu noolaan karaan go'doon. Maxaa sir ah oo weli ku qarsoon gudaha jasiiraddaas? Maalin ma aqbali doonaan inay la xiriiraan caalamka intiisa kale? Jawaabtu waa qarsoodi oo qof ka jawaabi karo ma lahan. Taas waa sababta Sentinel Island lagu tilmaamo jasiiradda ugu mamnuuca badan adduunka. Ugu dambeyntii, adduunka intiisa kale waa mid horey u socday oo gaaray horumar, laakiin jasiiraddani waxay ku hartay taariikhda oo waxay u shaqaysaa sidii ay dunida ahayd 10 sano ka hor. Sentinel waa xasuusin weyn oo muujinaysa in dunida aysan dhammaan, meel walbana la ogaan karo, welina ay jiraan qarsoodi naga yaabisa. Taasina waxaa ka mid ah mucjisada jasiiraddani qarsoon. Haddii aad muuqaalkani dhamaysatay, kanaalka ku soo biir, like-tana saar, aad ayaadna u mahadsan tahay. Waa in oo mar kale insha Allah.